bismillaahi raxmaani raxiim waxaan daawadayaal kusoo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya qaybtan waxaan ku eegi doonaa hadeebaha awood leh raalli uu ka noqdo hogaamiyaasha Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka oo bayaan wada jir ah soo saaray iyo waliba madaxweyne Trump oo shaaca ka qaaday in 4 toddobaad uu sii socon doono dagaalka. waxaa sidoo kale si weyn u soo baxaya in xoogaga Xisbullah ay ku biireen dagaalka bariga dhexe oo walibana wacad ay ku mareen in si weyn ay u garab taagan yihiin Iran. waxaan sidoo kale eegi doonaa askar Amerikaan ah oo lagu dilay weerar markaasi ay Iran ay ka geysatay Kuwait. waa sida xaaladda ee saldhigga military Mareykanku ku lahaa dalkaasi Kuwait. waa maxay waqtigan talaabooyinka culus ee soo baxaya Iran in shaaca ay ka qaaday in gebi ahaanba saldhigyada ay ku leedahay xitaa bariga Afrikada dhexe ay gebi ahaanba ay basbeelin doonto. qodobadaasi wixii kale noo soo raacay ayaan ku qaadaa dhigi doona saaxiibada noo cimaamada channelka subscribe noo saara like saaxiibada hore noo joogo meel dheer ay ina gaarsinaysaa inuu like gareemo muuqaalka mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal. aan ku bilaabay dalalka reer Yurub ayaa dawladda Iran ugu baaqay in ay joojiso weerarada bahsani ee markaasi ay ku garaacayso dalalka bariga dhexe oo ay markaasi ku jiraan kuwa dariska la ah. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer iyo waliba hogaamiyaha Jarmalka Friedrich Merz ayaan markaasi bayaan wada jir ah ku cambaariyay weerarada ay markaasi Iran ayna ku sheegeen kuwa markaasi oo la kaca walibana aan kala soc lahayn xaalad waa markaasi xad dhaafna ku ah gantaalada ay ku ridayso dalalka dariska la ah. hogaamiyaashan ayaan markaasi ugu hanjabay inay qaadi doonaan tallaabo difaac markaasi loogama maarmaan u noqon doonto loogana hortagaya gantaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo waliba sidoo kale ay Iran haddii ay weeraradan markaasi Tehran ay sii socdaan. bayaanka ayayna ku sheegeen in tallaabooyinkan ay markaasi ku ilaalin doonaan danahooda bariga dhexe kuwa xulafada gobolka. waxaana sidoo kale ay ka digeen in Iran haddii ay gantaaladeedu markaasi ay sheegeen aanan markaasi loo meel dayaynin isla markaana oo markaasi ay ka qaadayso gobolka oo dhani ayayna saameyn ku yeelan karaan ayayna si wada jir isugu raaceen. Macron iyo waliba Starmer iyo Merz ayaan bayaankooda markaasi ku sheegay in weerarada aan ka fiirsiga lahayn ee Iran ay halis gelinayaan askarta dadka rayidka ah iyo waliba goobaha sida weyn ee markaasi dadka ugu nool yihiin. waxayna sidoo kale ay ugu baaqayaan Iran inay markaasi si degdeg ah ay u joojiso weeraradeeda markaasi ayna ka fiirsato meelaha sida weyn ay ugu ridayso ayay yiraahdeen. bayaanka ayaan intaas ku dareen waxaana qaadi doonaa tallaabooyin aan ku difaaci doono danahayaga iyo waliba xulufaysigeega gobolka. suurtagalnimada oo aan awood u yeelan doono tallaabo difaac oo aan si weyn uga hortagi doono si loo burburiyo awoodda Iran oo aan markaasi ku joojin doono gantaaladeeda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee mar walba la beegsanayso ayayna ku soo gabagabeeyeen doodooda ku aadan iyagoon markaasi bayaan culusna soo saaray. dhinaca kale ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa aroornimadii hore ee saaka markaasi ku dhawaaqay in ururka markaasi uu gudan doono waajibaadkiisa ku aadan ka hortagga gardarrada Mareykanka, Israa'iil iyo waliba sidoo kale weeraradooda ka dhanka ah ee Iran iyo waliba dilalka ay ka geysteen ama ay u geysteen hogaamiyihii ruuxiga ah ee Ayatollah Ali Khamenei iyo waliba sidoo kale ururka ayaana dhankooda si adag u sheegay in dilka Ali Khamenei iyo waliba saraakiisha iyo wiilasha kaleba waxba aysan galabsan markaasi ay ka dhigan tahay heerka ugu sareeya ee markaasi dambiyada. waxa ayna markaasi gudan doona ay yiraahdeen waajibaadkeena oo aan markaasi si weyn uga hortagi doona gardarrada iyo waliba kalsooni darrada ee markaasi ku qabno ama guud ahaan aan ugu soo afjari doona ay yiraahdeen awoodda Mareykanku uu isbidayo in uu leeyahay. waxaana sidoo kale ay sheegeen in gebi ahaanba markaasi ay si xoogan u garab taagan yihiin difaaca dhulka sharfeed iyo waliba sidoo kale doorashooyinka kaalintooda ay ku leeyihiin sidii uga hortagi lahaayeen